gabadha quruxda badan waxay ninka soo jiidataa saacado, gabadha wanaagsanna waxay saamaysaa noloshiisa oo dhan. doqonnimo maaha inay gabar rumaysato beentaada, laakiin waxaa doqonnimo inaad raganimo dareento adigoo been u sheegaya. markaad wax barto nin, waxaad wax bartay qof keliya, laakiin marka aad gabar wax barto waxaad wax bartay qoys ama famil dhammaystiran. marka ay gabadhu xanaaqdo waxay lumisaa rubuc quruxdeeda ah, bar dumarnimadeeda ah iyo dhammaan jacaylkeeda. marka aad la hadlayso gabar aad u dhegayso, waxay indhaheedu leeyihiin. waxaan kaaga digayaa inaad been u sheegto dumarka, waxay leeyihiin awood cajiiba inay ogaadaan runta iyo awood ka sii badan inay qariyaan runta ay ogaadaan. dabka ayaa lagu tijaabiyaa dahabka, dahabka ayaa lagu tijaabiyaa dumarka, dumarkana waxaa lagu tijaabiyaa ragga. aamusnaanta gabadha waa fariin digniin ah oo ay gabadhu u dirayso ninka, taasoo ah inay ka tuurayso qalbigeeda. naxariista gabadhu waxay ka awood badan tahay xoogga ragga. gabadhu wax kasta way u samaysaa ninka ay jeceshahay, laakiin haddii ay ka shakiso jacaylkiisa muhiimad ma siiso. yaa yidhi dumarku ma laha ra'yi? dumarku maalin kasta waxay leeyihiin ra'yi cusub. ixtiraam gabadha ama uga tag mid kaa raganimo badan adiga. ceeb maaha inuu ninku ka barto qalbiga dumarka wax ka dhigaya mid dabacsan oo qalbi jilicsan. gabadhu waxay noqotaa hooyo markay wax jeclaato, maaha keliya markay wax dhasho. bara carruurtiinna in dumarku ay yihiin saaxiib waddan iyo nolosha oo dhan.